Okay, second part aan isku dayaya inaan marka gaarsiiyo marka anigoo raacinayo qaybtii horeysay ee ahayd maxaa la dhahay infinitiveka iyo sida isku bedelaan conjugationka. Jo aniga, to adiga, l qofkas labaad aa la hadlaysa ama nin iyo naag wuxuu yahay l waa nin, eja waa dumar. Nosotros annaga oo jo oo pluralkeeda ah, vosotros idinka, ellos ellas ayaga. Marka okay, waxaan imaanaynaa estudiar. Marka yo studio aa leedahay, anigu waxaan baranayaa. Tú estudias, marka haddaad su'aal ka dhigayso kor aa u qaaday inta u dambeysa. Yani tú estudias aa leedahay. Tú estudias, haddii kale tuda hadda waa ka reebi kartaa, estudias aa leedahay. Ma wax baa baranaysaa ahaan. Marka yo studio, anigu waxaan baranayaa. Tú estudias, adiga waxaad baranaysaa. El ella, el qofka oo ragga ah, ella qofka dumarka ah oo laba saddexaad. Usted ama ayadoo maxaa laga dhahay respected ah. Estudia wax buu baranayaa. Nosotros estudiamos, annaga waxaan baranaynaa. Vosotros idinka, estudiáis waxbaa baranaysiin. Ellos, ellas, ustedes, ayaga ama dumar ama rag ama dumar. Estudian waxbay baranayaan. Aprender macnaha estudiar waxbarasho soo maaha. Aprender waa barasho. Estudiar yo studio waxaan baranayaa. Aprender waa barasho. Marka af Soomaaliga laba jeer hal nooc ahaan uu leeyahay. Marka aprender, yo aprendo anigu waan baranayaa. Tú aprendes adigu waa baranaysaa. Él, ella aprende. Vosotros aprendemos, aniga waxaan baranaynaa. Ayaga aprendéis vosotros. Nosotros aprendemos, vosotros aprendéis. Ellos, ellas aprenden, ayaga way baranayaan. Tú, yo, escribir. Marka saddex nooc waay marka. Okay, estudiar marka r ay u dhammaanayso, waxaan noocan r markay ku dhammaanayso waa way aaday u fududahay inaad isku aadiso. Studio, stu marka jo aa gaarto studi oo bas aa raacini jooda. Tú estudias aa leedahay, as aa raacini. Studi markaa gaarto as aa raacini. El estudia aa bas aa raacini. Estudiamos waan caadi uma midoobeyni, negritas aa laga dhigay, waa la midoobay si aad u fahanto. Marka aprender wuxuu ku dhammaanaya aprendo, yo aprendo. Tú estudias ahayd, er ay ku dhammaanaysaa, er. Tana ar ay ku dhammaanay, tana er, er. Okay, es, ella aprende, aprendemos, aprendéis, aprenden. Escribir, ay ar ay ku dhammaanay, er ay ku dhammaanay. Bo, yo escribo, tú escribes. Escribir, ta'ooda inta raacinaysa ama waxa u dambeysay. Okay, yo escribo, tú escribes, él escribe. Nosotros escribimos, escribís. Vosotros escribís. Y ellos escriben. Ayagana way qorayaan. Escribir waa qoritaan. Okay, ¿a qué persona corresponden estas formas verbales? ¿A qué persona qofkee corresponden ay ku wajahan yihiin ama ay ku maxaa la dhahay ay ka hadlayaan ahaan formas verbaleskan verbiyaashan kuwee ka hadlayaan. Escribe el nombre personal adoo qorayso nombre personal. Yo, tú waxa adoo qorayso de sujeto al lado de cada forma. Al lado de cada forma adoo ku ag qorayso maxaa la dhahay ku ag qori. Okay, quieres ma rabtaa ahaan yaa la hadlaysaa. Yo quiero, tú quieres. So tú way ka xisaabsan tahay quierestan. Entonces tú waa qori. Haddana waxaa la rabaa inaad qorto wordkan muxuu kasoo jeedaa, infinitive-kiisa muxuu ahaa, midka aan qaybsamayn aan xisaabtamayn. Okay, querer rabitaan uu kasoo jeeda. Okay, quieres tú waa rabtaa maaha, querer uu kasoo jeeda. Leéis waa akhrinaysiin vosotros maaha, intuu kasoo jeeda leer akhritaan. Hace wuu samaynayaa isaga. Okay, yo hago, tú haces, él hace. Soo maaha, él hace. Tan waxay ahayd yo leo, tú lees, él lee, nosotros leemos, vosotros leéis ay kasoo jeedaa. Ellos leen. Yo hago, tú haces, él, ella hace, él, ella hace. Waxay kasoo jeedaa samayn soo maaha, wax la samaynayo. Okay, hacer ay kasoo jeedaa sax. Okay, tengo waa tener ay kasoo jeedaa. Yaa hadlaya yo tengo. Entonces waxay noqon doontaa marka yo aniga tener.
oo infinitive-kiisa eres. Inkastoo ay tahay irregular, waxaa laga rabaa yo soy, tú eres. Okay, tú eres ser ay kasoo jeedaa. Yo soy, okay, ayadoo soy iyo yo waatan. Soy adoo iska hadlayso, tú eres, so yo soy. Ser ay kasoo jeedaan labadaba. Hablas, adiga hadlaysaa ma aha. Yo hablo, tú hablas. Tú waa ayadana waxaan weerka buu kasoo jeedaa hablar. Diyaar leen way akhrinayaan ayaga. Leer ay kasoo jeedeen leer diyaar yaa hadlaya ayaga hadlaya. Okay, scribis waa qoraysiin. Vosotros ma aha ay intay kasoo jeedaa escribir diyaar oo taas. Bailan way ciyaarayaan. Bailo aniga waan ciyaaraya. Bailas adiga waa ciyaaraysaa. Baila way ciyaaraya qofka saddexaad. Bailan ustedes way kasoo jeedaa ama ellos. Diyaar bailan. Hago yo waan samaynayaa. Hacer ay kasoo jeedaa. Yo hago diyaar. Querer, yo quiero. Tú quieres. Él, ella quiere. Queremos nosotros. Queremos diyaar. Querer ay kasoo jeedaa. Nosotros querer diyaar. Vives waa ku nooshahay. Tú vives diyaar. Vivir ay kasoo jeedaa oo asalkeeda infinitive-ka. Infinitive word kadaa baadato markaa fahanto word wuxuu ka mid yahay vivir waa nolol ma aha. Yo vivo waa isticmaali. Tú vives diyaar. El, ella vivi vale. Sidaas oo kale. Tienes waxay kasoo jeedaa tengo. Yo tengo no. Yo tengo, tú tienes. Waxay kasoo jeedaa tener inay tahay. Marka tener waa bedeli. Yo tengo, tú tienes. Diyaar. Okay, waadaashan horaan uga soo hadalnay. Ana exercise ahaan waay. Sidaa daradeed comprender waa fahan ama entender fahan. Oír waa maqal. Escuchar dhegeyso. Si fiican u dhegeysi. Oírna waa passive. Ver waa fiiritaan. Okay, time yariisa haysano almost 7 minutes. Let's see intaan gaari karno. Marka waa sidii hadda oo kale. Escuchar markaa jo u bedelayso maxaa leedahay yo escucho. Diyaar. Mirar markaa u bedelayso vosotros. Miréis, miráis, miráis waa leedahay. Vosotros miráis. Yo miro waan fiirinayaa. Tú miras waa fiirinaysaa. Vosotros miráis. Ver waa fiiritaan. Vosotros anaga vemos waan fiirinaynaa. Beber cabitaan. Usted, él, ella. Yo bebo, tú bebes, él, ella bebe. Diyaar. Saludar waa salaan. Ellos ayaga saludan way salaamayaan. Yo saludo, tú saludas. Llevar waa qaaditaan ama booditaan. Meel geyn ahaan ama qaaditaan. Okay, ustedes ayaga macnaha elloska llevan way qaadayaan. Yo llevo, tú llevas, él, ella lleve. Ustedeskana llevan. Nosotros llevamos. Vivir, tú adiga markay tahay yo vivo, tú vives diyaar. Buscar, usted. Buscar baritaan ama raaditaan. Or search. Usted waa el, ella. Yo busco, tú buscas, el, ella busca. Esperar, sugitaan. Yo ani espero diyaar. Llamar, yeeritaan. Usted llama. Usted se llama ama llama waa loo yeeraa ama loo yeeray. Escuchar dhegeysi. Yo escucho, tú escuchas. Adina waa dhegeysanaysaa. Mirar waa fiiritaan. Nosotros anaga miramos waan fiirinaynaa. Ver waa fiiritaan. Vosotros idinka veis waa fiirinaysiin. Okay, responder waa reply back ama jawaab ahaan. Respondes, tú respondes. Yo respondo, tú respondes. Presentar o presentar gare ama soo muuji. Ella ayada. Yo presento, presentas adiga. Presenta qofka saddexaad waa el, ella. Marcar marcare. Yo marco, tú marcas, marca, marcan ustedes. Trabajar, shaqee. Él asaga trabaja buu shaqeynaa. Comer cunitaan. Vosotros coméis idinka waa cunaysiin. Esperar sugitaan. Yo espero sax. Llegar macnaha gaaris markaa gaartid. Okay, ellas llegan way gaareen. Presentar ispresentar garee. Tú presentas waa ispresentaraysaa. Abrir furitaan. Nosotros abrimos anaga waan furaynaa. Dedicar dedicate garee ama maxaa la dhahay
dedication markaa sameyso waqti gelin ahaan okay ama muhiim qaar macnaha muhiimad siinaysa ahaan dedication aa la dhahaa marka okay el dedica yo dedico me dedico tú dedicas okay el dedica sax responder responsi ama reply respondo yo presentar presentar caadi magacaas soo laabtay marcar sidoo kale martida soo laabtay beber ustedes markii loo isticmaalayo beben saludar saludas tú markii la leeyahay llevar lleva markaas waqtigaa socda aad iyo aad okay vivir nolol ku noolaal yo el viva uu ku nool yahay ama el ama ella way ku nooshahay buscar qofka saddex labaad markuu lahayo tú buscas esperar ellas esperan sax llamar yo llamo diyaar trabajo yo trabajo comer nosotros comemos esperar al raba maxaan ka dhigaynaa labaad el espera sax llegar gaaritaan vosotros llegáis presentar usted presenta abrir yo abro diyaar dedicar tú dedicas sax completa este anuncio maxaa dhamaystirtaa uu leeyahay anunciagan en la página web de intercambios pon los verbos adecuados en la forma de correcta okay tener markaa yo leedahay tengo tú tengas diyaar ver waan fiirinaya veo waan arkaya leer waan akrinaya leo waan akrinaya leer waa akhris yo le aan waan akrinaya ser waa nahaasho yo soy ani waan nahay vivir ku noolaasho yo vivo waan ku noolahay hablar waa hadal hablo waan ku hadlayaa me llamo llamarse querer quiero haseer haago adiga iska dhigaysaa marka adigaa rabtaa marka inaad ka dhigto wax yar aad buuxiso okay hola waa salaan jamo aad ku buuxinaysaa magacayga corner ama eblow yo tengo ama aniga adoo jo isticmaalin waa kusii kordhin kartaa y tengo waxaan leeyahay waxaan haystaa ama aan jiraa 29 años soy irlandés aniga waxaan kasoo jeedaa irlandes de dublin wadanka magaaladaas caasimada dublin hablo waxaan ku hadlaa español aan ku hadlaa pero laakiin quiero waxaan rabaa mejorar porque quiero mejorar pero quiero mejorar waxaan rabaa inaan aan maxnaa sii wanaajiyo ka fiicnaado intan porque vivo en España aniga waxaan ku noolay España leo muchos libros en español waxaan aqriyaa buugag badan oo Spanish ah y veo series películas en español iyo waxaan fiiriyaa veo series waxaan fiiristaa películas iyo filimaan español en español af españolka ah pero quiero hacer waxaan rabaa inaan sameeyo un intercambio inaan kala bedelis sameeyo con un nativo para hablar mejor waxaan rabnaa qof inaan isweydaarsanno ama isku bedelno isagoo ku hadlaya Spanish qof Spanish si aan Spanish u barto aan si fiican ugu wanaagsan u barto waxaan rabaa qof Spanish u dhashay inaan si fiican ula hadlo si ay luqadda igu fududaato okay I think waa aad ay u yartahay waqtigeena soo haray marka jo waa aniga tú waa adiga el ella waa qofka la saddexaad macnaha aan joogin ama joogo el ella yo me tú you el ella usted it they oo kale no they waa ellos nosotros waa aniga we vosotros you guys idinkoo badan iyo ellos qofka saddexaad oo ayagoo badan okay tan waa first person singular first person plural second person singular second person plural third person singular third person plural yo escucho aniga waan dhegeysanaya tú escuchas adiga waa dhegeysanaysaa el ella escucha wuu dhegeysanaya escuchamos nosotros waan dhegeysanayna escucháis idinka waa dhegeysanaysaan ayagana way dhegeysanayaan escucha trabajo waan shaqeeyaa tú trabajas adiga waa shaqeysaa trabaja él trabaja wuu shaqeeyaa nosotros trabajamos aniga waan shaqeynaa vosotros trabajáis idinka waa shaqeysiin él ellos ellas trabajan ayagana way shaqeeyaan yo compro ani waxaa waaye waxaa la dhahay waan iibsanayaa comprar waa iibsi trabajar waa shaqe escuchar waa dhegeysi yo compro tú compras adiga waa gadanaysaa el ella compra uu gadanaya compramos aniga waan gadanaynaa comprais idinka waa gadanaysiin ellos compran ayagana way gadanayaan comer waa cunitaan leer waa akhris aprender so conjugación la dhahaa sidii loo isku bedelaan first person second person si isku bedelaan waa muhiim qofku inuu hadduu rabo inuu barto inuu aad u akhriyo oo aad maxaa la dhahay u daraasay muhiim waaye qofka ku celceliyo sidaas aan isku ogaan karnaa scribis waa vosotros sida ugu soo dhigi lahayd
escribe waa qofka labaad, saddexaad waa